ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan oo garab ka helaya ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo isbitaalka Samakaab ayaa adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah u sameeyay qoysas danyar ah oo ku nool xaafadda Buundaweyn ee magaalada Beledweyne. Dhaqaatiirka kala socota isbitaalka Samakaab iyo ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ayaa baaritaano iyo dawooyin lacag la'aan ah siiyay qoysaskan oo ka mid ah kuwii ay saameeyeen daadadkii ku dhuftay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan 12 bishii November ee la soo dhaafay. xogayaha ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan Dr. Maxamed Cumar Muudaale iyo Dr. Cabdirasaaq Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka Samakaab ayaa si wadajir ah Radio Beerlo uga warramay cudurrada ugu badan ee ay ka daaweeyeen dadkan iyo tirada ay qaabileen tan iyo markii hawsha ay bilaabeen iyo tirada maanta. Anagoo ah ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan maanta waxaan soo gaarnay xaafadda Buundaweyn taasoo in muddo ay go'doon ahayd. ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan xarunta ugu weyn waxay ku taallaa xaafadda Aljaalle taasoo ay ku soo barakaceen dadkii fatahaadda ee saameeyeen xaafadda Kooshin iyo Xabataako. Maanta waxaan sameynay mobile team taasoo aan ku imaanay xaafadda Buundaweyn taasoo ay ka jirto baahi weyn oo xagga caafimaadka iyo xagga wacyigelinta. Maanta ilaa waxaan qaabilnay 80 bukaan oo isugu jirto ilmihii 5 sano ka yaraa, ilmihii 5 sano ka weynaa, hooyadii uurka lahayd iyo dadkii waaweynaa. ilaa hadda cudurrada aan aragnay waa cudurrada shuban biyoodka, cudurrada maqaarka ku dhaco, cudurrada pneumonia-da. ilaa hadda waxaan aragnay 3 case oo measles oo jadeeco ah. waxaan kaloo baaq soo jeedin lahaa in dad walba oo nagala qayb qaadan karo supply-ga daawada aan ku shaqeynayno inayna soo gaarsiiyaan haddii ay ahaadaan NGO-da, isbitaalaadka iyo wasaaradda. supply-ga ugu horreeya waxaan soo gaarsiiyey isbitaalka Samakaab. waxaa kaloo daawo deeqna soo gaarsiiyey ilaa hadda ku shaqeeynaa ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed. maanta waxaan joognaa xaafadda Buundaweyn oo runtii aan aragnay in dad badan oo gaaraya ilaa 10,000 qof ay ku barakaceen wax supply ay soo gaarin. isbitaalka soo garaawsan dhibaatooyinkaas ayaa waxa uu go'aansaday inuu maalmo dheeri ah ku darsado waqtigii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo deegaanka si uu u gaaro xaafadda Buundaweyn oo runtii dad badan ay ku soo barakaceen. Buundaweyn way ka duwan tahay xaafadaha kale maxaa yeelay dadka Buundaweyn ku dhaqan waxay isku soo barakaceen si isdulsaar ah. halkii qoys waxaa ku soo qacay 5 qoys ka badan. marka waxaan soo gaarnay deegaankan oo aan maanta aan u shaqeynayno ilaa maalmo kalena aan ka shaqeyn doono. runtii intii aan wadnay campaign-ka waxaan la kulannay bukaanno fara badan, bukaanno gaaraya ilaa 3,700 oo bukaan kuwaas oo iskugu jiray kuwo la siiyay la talin caafimaad, kuwo loo qoray dawooyin iyo kuwo qaar oo aan u rafeel galeen isbitaallada waaweyn oo xaaladooda u baahnaa in isbitaal loo gudbiyo. dadkii aan qaabilnay runtii waxaa u badnaa runtii haweenka iyo carruurta gaar ahaan hooyada uurka leh. waxaan qaabilnay 1,345 hooyo uur leh. runtii dadkaasi 500 ka mid ah waxay ahaayeen dad oo qaba cudurrada hooyada uurka leh u nugul yihiin sida dhiig la'aanta oo u badneed. marka dadkaasi runtii dad aad u nugul ay ahaayeen. waxaan rabaa marka inaan halkaan aan baaq ugu soo jeediyo dhammaan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaanada labada gole ee deegaanka laga soo doorto. runtii dadkan iyo deegaankan dhibaato culus ayaa ka dhacday. dadka in la soo gaaro oo caafimaadka qayb weyn laga qaato. dadkan caafimaad kali maahan waxay u baahan yihiin nolol kale way soo kaceen. qofba wuxuu ka qabanayay shaqooyinkii nolol maalmeedka caadiga ah ma qabto. magaalada dhibaato badan ee fatahaada u geysatay. waxaan runtii baaq u dirayaa dhammaan ganacsiyada Soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka, xukuumadda iyo kan Hirshabeelle dhammaan inay dadkan u fidiyaan fatahaadaha gargaar. Maa'ida Abuukar Faarax oo ka mid ah dadka ka faa'iideystay dawadan lacag la'aanta ah ayaa Radio Beerlo u sheegtay inay baahi weyn u qabeen. waxaan deganahay xaafadda Buundaweyn aan ka soo barakacay. waxaan ku suganahay hadda qabuuraha aan ku soo qaxnay. maasha Allah tabaarakallah, ilaahay ha barakeeyo. daawo waa iskaga baahneen, wax dheef kale waa iskaga baahneen. hadda waxaan ugu soo hormaray daawadana noola keenay, waana nala soo dhaweeyay, waana nala siiyey. alxamdulillah, ilaahay mahad iska leh. in noola soo laba jibaarana waan jeclaan lahayn. ololahan caafimaad ee lagu caawinayo dadkii ay saameeyeen fatahaadda ayaa in ka badan muddo bil ah ka socda magaalada Beledweyne iyadoona lagu daweeyey in ka badan 3,000 oo ruux. Cumar Yuusuf Aadan, Radio Beerlo, Beledweyne.